deegaankani waa deegaanka Daarasalaam ee degmada m.gurey gobolka Sool wuxuu ilaadii 80 kiilomitir u jira xarunta gobolka Sool ee laascaanood dhanka waqooyi. goobtan waa goob ay isku ururiyeen kumanaan qoysas ah oo ah dadka ay xooluhu ka dhamaadeen kuwaasi oo soo miciin biday deegaankan oo ah mid u dhow degmada Daarasalaam ee gobolka Sool. xaaladda ay ku sugan yihiin dadkani waa mid aad u liidata iyagoo muddo dheer ku sugnaa goobtani intii ay dhacday abaartii ballaadhneed ee Allow ka soo furtay ummadda Soomaaliyeed hase yeeshee ay weli ku sii jirto qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool. dadkan aan tiradooda la koobi karin ayaa waxaa ku soo ururiyay goobtani xukuumadda Soomaaliland kadib markii uu soo saaray wareegto lagu mamnuucayo deegaamaanta cusub. wasiirka wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon markaad waraysato qoysaska Barakacayaasha ayaa waxay ku sheegayaan inaysan haysan wax ay quutaan iyo wax ay cabaan labada midna. saddexda waqti dadku ay quutaan dadkani ma aha si dhamaystiran u hela iyagoo hal waqti ama laba waqti hela. muddooyinkii u dambeeyay waxaa qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool ka dilaacay xanuunka shuban biyoodka. dadkan dhibaatada la ildaran ayaa sheegay inay dad u dhinteen muddooyinkii u dambeeyay xanuunkaasi. baahiyaha iyo kumanaanka qoys ayaa mid aan la soo koobi karin hase ahaatee aysan jirin wax adeega bulshada asaasiga u ah aysan haysan baasida caafimaad la'aan, quud la'aan iyo biyo la'aan. dhibaatada ka jirta deegaankaasi ayaa inaysan lahayn wax suuli ama wax nusqul ah. maayarka degmada m.gurey gobolka Sool Xuseen Xaaji Maxamuud ayaa ka hadlay dhibaatada haysata dadkani ku soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada gobolka Sool isagoo baaq u diray hay'adaha qurba joogta deegaankan iyo sidoo kale cidii gacan ka geysanaysa dhibaatadan soo food saartay dadkani. waa barakacayaasha guumayseed barakacayaashaas waxay degan yihiin guumays sida loo yahayba ee caalamku og yahay ama dawladda Soomaaliland og tahay ama hay'aduhu og yihiin. waad u jeedaan tiradooda waliba waa kala maqan yihiin. waxa kale oo jirta dadkaasi waa dad masaakiina oo xoolo ka dhamaadeen. waxay u baahan yihiin sidii aanen horaba u sheegnay wax kasta qof bini'aadan u baahan yahay nool bay u baahan yihiin hooy, cunto, biyo, caafimaad, waxbarasho ayay u baahan yihiin. marka waxaan halkan message u marinayaa hay'adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah, dawladda Soomaaliland, ururada islaamka in la caawiyo oo lala soo gaaro waxa bini'aadanku ku noolaadeen nafta bini'aadanku u baahan tahay in lala soo gaaro oo loo dadaalo ayaan u dirayaa ambiil oo marinayaa media. sidaa daraadeed dadkaasi waa dadka halka degan ilaahay iyo dadka baa u maqanay wax ka sugaan. inta badan waxa meeshan biyo la'aan baa ka jirta, waxa ka jira caafimaad darro, waxa ka jirta waxbarasho la'aan, sanitation xumo, muqsulo male. hoyga waad u jeedaa suu eg yahay, xilliga roobkuna waa soo dhow yahay. sidaa daraadeed waxaanu ka codsanaynaa inta aan kor ku xusay in lala soo gaaro waxyaalaha ay u baahan yihiin oo laga caawiyo ayaanu codsi u jeedinaynaa cid walba oo caawiyo wax ilaahay baa wax caawiye. daawadeel waxa warbixintan idin diyaariyay anigoo Maxamuud Aadan Askar m.gurey waa bahda Somali News iyo deegaanka Daarasalaam ee gobolka Sool.